Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada sideed scholarship oo ka diyaarsan Canada. Waxaad ku baranaysaa si free ah sideedan scholarship. Waa haddii aad raacdid ruleska iyo talooyinka aan ku siin doono. Sideedan scholarship ee Canada ay u diyaarisay in dhammaan caalamka dadka daneeya inay wax bartaan uga yimaadaan oo ay wadankeeda ku bixinayso oo ah fully funded scholarship. Haddaba daawada ma jeceshahay in aad Canada ka barato waxbarasho free ah oo aad lacag ku qaadanaysid iyo nolol halkaas aad ku joogaysid ama lagu siinayo degenaansho aad ku joogtid wadankaas. Haddaba daawade haddii aad xiisaynaysid waxaan ku xasuusinaynaa inay muhiim noo tahay inaad subscribe saarto sidoo kalena muuqaalka like saarto si uu saaxiibo badan u gaaro sida adiga oo kale. Ku mahadsanid. Scholarshipska ay bixinayso ee sideedda ah ee Canada ay diyaarisay waxaa ka mid ah ama markii lagu weydiiyo why Canadian universities accept applications for times in a year sanadkiiba 4 jeer ayay bixisaa oo ogashahay in lasoo codsado fully funded scholarship oo aad ku baranaysid si bilaash ah wadanka Canada. Waxaan rabnaa inaan usii guda galno si aan u faahfaahino. Jaamacadda ugu horeysa waa Saskatchewan University Scholarship. Waa available waa undergraduate iyo graduate degree programs. Sanadka waqtiga uu bilowmana waa January 2022 inteega hadda soo socda. Degree level waxa weeyaan bachelor wadatid ama master ama PhD. Deadline-keedu waa 1 December 2021. Isdiiwaangelintu way furan tahay 1 December waa uu dhacayaa. Financial coverage-ka waxaa bixinaya waa funded waxaa bixinaysa jaamacaddaas. Marka faculty-yada aad ka baran kartidna waa agriculture, plants, animals, business, economics, any field oo aad rabtid inaad baratid. Requirements-ka marka maxaa lagaga baahan yahay? Waxaa lagaga baahan yahay inaad caddeysid luqadaada Englishka intay la eg tahay ama waa inaad wadatid IELTS oo ah imtixaan shahaado loo qaato oo loo fadhiisto luqadda Englishka. Sidoo kale linkiska waxaad ka heli doontaan qaybta hoose ee comments-ka. Waxaan ku xasuusinaynaa inaad muuqaalkan like saarto sidoo kalena comment aad ka bixisid si uu saaxiibo badan u gaaro. Jaamacadda ku xigta ayaan u geli doonaa oo jaamacaddaasi waxa weeyaan waxaana lagu xujeeyay in qofku uu wato shahaado la aqoonsan yahay oo heerka uu Englishkiisu gaarsiisan yahay ah. Sidoo kale jaamacadaha soo socda way jiraan kuwo aan qofka lagu xujooneyn in uu wato shahaado luqadda Englishka heerka ay gaarsiisan tahay ah maadaama dadka wax codsanaya ay yaryihiin. University of Alberta scholarships waxay bixisaa degree level bachelor, masters, PhD, diploma or certificate programs. Tan xataa waxay bixisaa diploma oo 1 sano ah ama 2 sano ah. Deadline-ku waa November 1 2021 for January admission. Admission-ka 5 January baa la qaadanayaa, November buuna dhacayaa deadline-keeda. Financial coverage-ka waa la bixinayaa waa full funded waxaana fieldigu uu yahay agriculture, life, environmental science iyo kuwo kale oo badan. Waxaa loogu talagalay sanad walba xilligan ayaa la qabtaa. Waa inaad sanadka waqtigiisa aad eegataan. Overall-ka waxa weeyaan halkaas ayaan jaamacaddan kaagama baahna wax shahaado aqoonsi ee luqadda ah sidaa darteed waa apply garan kartaan. Waxaan idinla socodsiinayaa inay muhiim noo tahay inaad subscribe-ta, like-ta iyo share-ta noo taabataan si saaxiibo badan uu u gaaro. Sidoo kalena midda saddexaad waxa weeyaan Government of Canada waxaa bixinaysa dowladda Canada tan 3 November ayuu ku egyahay deadline-keedu. Fieldiga la baranayana waa health research. Isna waa apply garan kartaa bilaa shahaado
adigoon shahaado luqadda lagu xujeynin. Degree iyo doctoral degree ba way bixisaa waana diyaar. Waad ku mahadsantihiin la jaanqaadkiina mahadsanidin qaybaha kalena waxay